الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. maanta waxaan barnaamijka baraarujinta bulshada aan ku soo qaadanaynaa xadiidkan qiimaha badan oo nabiga calayhi salaatu wasalaam ummaddiisa uu kula dardaarmaayo si gaar ah nin asxaabtiisa ka mid ah ayuu nabiga calayhi salaatu wasalaam kula dardaarmayey, laakiin xadiidka waa caam, wuxuu khuseeyaa ummadda oo dhan. waxaa la yidhaahdaa alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sabab. ninka lala hadlaayey oo si gaara loola hadlaayay hadafka ma aha, waa caam, ummadda oo dhanba inay ka faa'iidayso ayuu nabiga ka faa'iidaysata. xadiidkan ayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam uu dardaaran ugu soo jeediyey, waana sidaan hore u sheegnay waa min wasaaya rasuuli sala allahu calayhi wasalam. nabigu wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam: iqtanim khamsan qabla khams, shan ka faa'iidayso ka hor intaysan kugu imaanin shan. shabaabaka, dhallinyarnimadaada ka faa'iidayso, qabla haramika, gabowgaada amba odaytinimadaada amba duqnimadaada amba waayelnimadaada ka hor dhallinyarnimadaada ka faa'iidayso. wax badan oo wanaag ah oo cibaado ah oo alle u dhowaansho ah aad ku samay karto dhallinyarnimadaada ayaadan ku samay karin markii oo waqtiga kaa daba yimaado oo aad gabowdo oo aad duqowdo. sidaas darteeda nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu nagula dardaarmayaa: iqtanim shabaabaka, dhallinyarnimadaada ka faa'iidayso, qabla haramika, odaytinimadaada amba duqnimadaada ka hor, wa sixataka, caafimaadkaada ka faa'iidayso, caafimaadka waa qaali, qabla saqmika, xanuunkaada amba jirro inay kugu timaado ka hor, intaysan kugu imaanin ka hor. wax badan oo caafimaadka aad ku qaban karto oo cibaado ah oo alle u dhowaansho ah oo khayr ah ayaadan qabsan karin xilli aad xanuunsato. sidaas darteeda nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu nagula dardaarmayaa in caafimaadka aan ka faa'iidaysanno, waqinaaka, hodantinimadaada ka faa'iidayso, hodantinimadaada inta aad wax haysato ka faa'iidayso, qabla faqrika, intaysan waxyari kugu imaanin. marka ninka haddii uu wax haysto, wax badan oo wanaag ah oo khayr ah ayuu samay karaa. sida aad la socotiin, asxaabu rasuulillaahi kuwooda oo wax yar waxay u tageen nabiga calayhi salaatu wasalaam, markaasaa waxay yidhaahdeen: yaa rasuula allaahi, dahaba ahlu duhuuri bilujuuri, yusalluuna kamaa nusallii, wayasuumuuna kamaa nasuumu, wayatasaddaquuna bifuduuli amwaalihim. rasuul allow, ajir oo dhan waxaa la tegey dadka maalqabeenka ah, ayay yidhaaheen. nimanka faqiiriinta ah nebigay u tageen. sida annaga aan u dukanno ayay u dukadaan oo salaad ma dheerin. wayasuumuuna kamaa nasuumu, sida aan u soonno ayay u soomayaan oo soon ma dheerin. wayatasaddaquuna, waxay sadaqaysanayaan ayaga si gaar ah, bifuduuli amwaalihim, xoolahooda waxyaabaha dheeriga ayay sadaqaystaan. sidaas darteeda nimankaas wixii ajira ayagaa la tegey. marka nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu u sheegay: awalaysa allaahu bikulli tasbiixatin sadaqa, tasbiix kasta sadaqa ilaahay sow idinkagama dhigin, tasbiix kasta sadaqa sow ilaahay idinkagama dhigin, taxmiid kastaba sadaqa ilaahay sow idinkagama dhigin, allaahu akbar kastaba sow sadaqa ilaahay idinkagama dhigin, tawxiid kastaba sow sadaqa alle ilaahay idinkama dhigin. markaasaa nimankii
inay dib u laabteen ayaa howlihii iyo wixii nebiga dardaarankiisa ay bilaabeen markaasa waxaa maqlay nimanka yacni hodanka taajiriinta arrinkaa maqlay in nimanka faqiiriinta nebiga saas uu sheegay ayagana wixii ay bilaabeen mar labaaday soo dacwoodeen rasuul allahu nimankii wixii aad nafarta ayagana waa samaynayaan markaasaa nebiga calayhi salaatu salaam wuxuu yidhi warkaas fadliga ilaahay waaye xoolahe yacni wanaaggiina kale iyo khayraadkiina kale ka shaqeeya ayuu nebiga yidhi calayhi salaatu wasalaam marka sidaas darteeda yacni hodantinimada amba maalqabeennimada waa fursad weyn oo qofka muslimka ah oo ka faa'iidaysan karo sidaas darteed ayaa nebiga waqinaaka hodantinimadaada ka faa'iidayso ku yidhi qabla faqrig yacni waxyaridaada ka hor amba faqiirtinimadaada ka hor wa firaaqaka intii aad faaruq tahay ka faa'iidayso qabla shuglika intuusan mashquulnimo ku imaan amba intaadan mashquulin firaaqadaada ka faa'iidayso oo yacni wax badan oo alla u dhowaansho ah wax badan oo cibaado ah samey wa xayaataka noloshaada ka faa'iidayso qabla mowtika geeridaada ka hor intaad nooshahay ka faa'iidayso geeridaada ka hor oo dadka dhintay ayaga sida nebiga calayhi salaatu wasalaam xadiid kale oo ku sheegay camalkooda waa go'ay camal laga aqbalaayo oo u sii soconaya ma jiro idaa maata ibnu aadam inqadaca camaluhu bini aadamka haddii uu dhinto ama qofka insaanka haddii uu dhinto camalkiisu waa go'a ilaa min halaaثin saddex waxyaabood maahane sida nebiga uu sheegay sadaqa jaariya haddii adduunka uga tagtay intuusan dhiman ka hor masaajidou dhisay dugsi qur'aanow dhisay war ayuu qoday ceelow qoday wax oo yacni dadka cumuuman intifaac u leh oo dadka ku intifaacsanayaan uu sameeyey sadaqa jaariya waddow bixiyey wax wanaagahu qabtay markuu dhinto ajarkii inta waxaas ay jiraan waa u sii soconayaan sidoo kale wa cilmun yuntafacu bih wuxuu ahaa nin caalim ah oo dad badan wax baray dadkaas dad kale wax sii baray cilmigiisa ayaa la intifaacsanayaa markii uu dhintay kadib intaas yacni bini aadana oo cilmigiisa intifaacsanaya oo waxyaabaha uu dadka baray ilaahay ugu dhowaanaya oo khayraad ah samaynayaan asigana qabriga intuu ku jiro waa u sii socona tan kale waxa waaye saddexaad wa waladun saalixun yadcu liwaalidayh inuu adduunka ugu soo tagtay cunug baari ah oo diinta uu soo baray amba ilmo badan oo yacni u duceeyanayaan asigoo dhintay oo qabriga ku jira u ducaynayaan saddexdaas shay keliya ayaa qofka bini aadamka markii uu dhinto ajirka u sii socona idaa maata ibna aadam inqadaca camaluhu ilaa min halaaثin sadaqa jaariya wa cilmun yuntafacu bihi wa waladun saalixun yadcu liwaalidayhi sidaas darteeda ayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu nagu boorinayaa ka faa'iidayso noloshaada qabla mowtika geeridaada ka hor sidaas darteeda nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu nagu boorinayaa in noloshayna aan ka faa'iidaysanno geerida ka hor marka maanta oo barnaamijkeena buraarujinta bulshada aan ku soo qaadannay xadiidka qaaliga ah ee nebiga calayhi salaatu wasalaam ummaddiisa uu kula dardaarmaayo iqtanim khamsan qabla khams halkan ayaan ku soo gebagabaynaynaa wa subxaanaka allaahuma rabbanaa wa bixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa ant astagfiruka wa atuubu ilayk